mas-uuliyiinta dowladda hoose degmada Burco oo uu hogaaminayo Maayir Muraad ku-xigeenkiisa Xoday iyo xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Burco iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo ciyaartoy ku ciyaaraysay magaca dowladda hoose degmada Burco ayaa shir jaraa'id ku qabtay shalay galabnimadii hotel Nastooxe ee magaalada Burco kaga jawaabay eedayn uga timi agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan anigu kulli shakhsiyan ma aqaani nin la igu yiri waa agaasime guud buu ka yahay wasaaradda kubadda waxaan aad uga xunnahay marka hore mas'uul qaran oo dawladdiisii uu ka tirsanaa tiifiyada ka caay maanaan jeclayn inaanu ka hadallo tiifiga annagoo la tirsanayna mas'uul qaran laakiin arrinka been abuurka ah arlada fasahaadiyay inaanu ka jawaabno iyo dhambaalada iyo telefoonada dadkan mas'uulka ka ah nagaga soo dhacay dalka iyo dibadda inaanu ka jawaabno khasab ay nagu noqoto waxaan halkan ka cadeynaya waxaan ninka weynu ku hadlay ee TV-ga kaga hadlay warbaahinta kaga hadlay ee meel walba laga dhageystay laga daawaday been dhashay inay tahay oo wax kama jiraan tahay waan ka cadeyn ninba waxa laga sheegay ilaahay ku abuuray eed ma lehe indhaha ku arkaya ayaan daran ummadda ninkaas madax u yahayba ayaan daran laakiin madaxweynihii xilka u dhiibtay ee qof buu u arkayay xilka ka adkaan kara laakiin waa ku banjaray waa ku fashilmay madaxweynaha qaranka waxaan leenahay markaad macallin tahay arday aad tababaraysa wuxuu dhigayso qaarna way gudbaan qaarna meel dhaxay fadhiistaan qaarna way xadhaan agaasimahan fuuntoobay madaxweyne waxaan leenahay meesha ka saar waxa yaab leh ila midoomida ku xasuusinaysaa nin gaabanoo u eg dadka Afrikadan dhexdiga u eego leeygu yiri waa wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda oo isaguna wasiirada fuuntoobay ka mid ah maalmaha ka mid ah annagoo Hargeysa joogna oo aanu goob fadhino tan oo kala oo aanu dantayada kala hadlayno annagoo ah dawladii hoose abaar hadalkii markaan isku celinay hadalku iigu jawaabay ballan baan ku qaaday inaan saxaafadda ka idhaahdo kan maanta agaasimahan fuuntoobay baan isagana raacinaya wasiirka madaxweynaha waxaan leeyahay wasiirka gaabanayna waa wasiirada fuuntoobay ummadda ka qabo wuxuu igu yiri anigu reer Hargeysaan ahay buu yiri maayarow Hargeysaan ku dhashay adaa qariiba oo burcana qariib ku ah war mas'uul waxa yiraahdeen adduunka ku maqashay ee ragga dhacay madaxweynaha ku eegin wasiirada fuuntoobay agaasimayaasha fuuntoobay ee ummadda maxaad ugu eegaysaa ka qabade magacaaga ku ciyaarayaan dadkan reer Burco ee qaranka Soomaaliland hormuudkiisa iyo adiga isku kiindirayaan dhalinyarada la kicinaya ummadda la kicinaya dadka noocaasa waxaan leenahay ummadda ka qabo madaxweyne ummadda ka qabo maanta reer Burco haddaanaan hadalka anagu oranin midaan taxriir bay istaagay tirboos waxaan leenahay yarkan dewa wuxuu ka mid yahay howlwadeennada wasaaradda maamusho hadalka waxaan u qaadanaynaa inaad adigu u soo dhiibtay raalina ka tahay 48 saacadood gudahooda haddaad kaga soo jawaabay naloma soo sheegin oo maanaan arag walama oran ka soo qayb gala walama oran soo diyaar garooba hadalka iyo tartanku furmaya oo isu ka raacay war soo saameeyay dacwad baanu ka gudbinaynaa agaasimaha dacwadda wixii laga yiraahdo wasaarad baanu leenahay wasiir baanu leenahay toos baanu uga gudbinaynaa dacwadda ma Soomaaliyeed waxay tiraahdaa in hadal ka dhacay wageed qolfi ka dhacday waxaanu leenahay muuqaalhaan maanta waa aragtaan waa kuwa dhabarkayga taagan ciyaartoygii degmada ku ciyaarayay nuurna xarow bal horta maqal ilaa waxaad ku jawaabtay inta meediyaha soo taagtay dawladii hoose ee Burco diyaar uma aha ciyaartoygii ku ciyaaray magaca degmada Axmed Nuur Samraawi telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Burco.